أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa cabdi maalig askar. in dhaweyd baa soomaalida degan qurbaha iyo wadanka Soomaaliya ayaa waxa ay ku fakarayeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen qalabka cusub ee adduunka ku soo kordhaya ee loo yaqaan technology-ga. taasi oo siyaabo kala duwan ay dadka uga faa'iideystaan haddii noqon lahayd internetka, haddii noqon lahayd telefoonka iyo haddii noqon lahayd baabuurta ama warshadaha ama qalabka cusub ee maalin walba soo baxa. dad weyn oo laga leeyahay Soomaaliya ayaa waxa isku dayday inay ka qayb qaadato qalabka cusub ee technology-ga. iyagoo ka faa'iideysanaya ayaa waxa ay soo saareen qalab yar oo saruufoonka la eeg magaciisana la yiraahdo cilmi. sababta cilmi loo yiraahdo waxa weeye waxa ku jira 22 luuqadood. waxaana markaasi ka kooban yahay 740 saacadood. qalabkaas yar ee cilmi ayaa waxa lagu soo koobay tafsiirka Quraanka Kariimka oo dhan iyo waliba axaadiistii iyo waliba siiradii. si kastaba haatee kaliya ma aha inaad ka helaysid Quraanka iyo tafsiirka iyo axaadiista, waxa ku jira aadaankii, waxa ku jira ducooyinkii, waxa ku jira su'aalo iyo jawaabo la isdhaafsanayay. haddii aanu ka soo tagno 22 luuqadood aynu soo daadegno luuqadda Soomaaliga ayaa waxa ka dhex muuqda culimada waaweyn ee Soomaalidu ay leedahay. halka soo qaadno qaar ka mid ah culimadaasi ayaa waxa ka mid ah Sheekh Shariif Cabdinuur, Sheekh Umar Faaruq, Sheekh Umul iyo waliba Sheekh Derir iyo culimo badan oo Soomaaliyeed maqli doontaan codkiina markaad dhageysataan haaladan cusub ee cilmi. si kastaba haatee haaladan waxa kale oo ku dhan lagu soo ururiyay ducooyin ka badan ilaa iyo 2 saacadood oo aad ka dhageysanaysid. haddaba haaladan cilmi waxa aad moodaa inay fududeysay Quraanka barashadiisii meel kastoo aad joogtid, haddaad safar ku jirtid, haddaad gaari ku jirtid iyo waliba haddii aad markaasi galaasi aad ku dhex jirtid, data baad gashanaysaa, jeebkana waa uu ku gelayaa qalabkan. haddaba qalabkan cilmi ee runtii noo fududeeyay barashada diinta Islaamka isagii oo sharaxsan waxyaalaha ku jira iyo inta uu ka kooban yahay baanu caawa halkan ku qaada dhigi doonaa. cilmi waxa uu ka kooban yahay 22 luuqadood, barashada Quraanka, tafsiirka iyo axaadiista iyaga oo turjuma. haddii noqon lahayd inaad markaasi dhageysatid iyo haddii noqon lahayd markaasi inaad ka akhrisato screen-ka uu leeyahay cilmi. laakiinse haddaynu hoos u soo daadegno oo eegna dhinaca Soomaaliga maxaa markaasi aad ka helaysaa qalabkan cilmi ayaa waxa markaasi la yiri shaqaqa ugu waaweyn Soomaaliya ee iyagu markaasi isku dayeen inay turjumaan ama u sahlaan Soomaalida inay markaasi ugu macneeyaan afka Soomaaliga ayaa waxa ay qaateen qaab qayb oo ugu talagaleen in markaasi aaladan loo isticmaalo cilmi. haddaba haddaan ka soo qaado tafsiirka Quraanka Kariimka ayaa waxa runtii halkan si aad iyo aad kugu macneynaya Sheekh la magacaabay Sheekh Umar isagoo ku kala dhigaya codkiisii نواكم. عوا وقبل الله يا عيد بقول يا أفراد سورة البقرة. تفسير كأنتاسي وقدمنا وقدمنا صحيح البخاري رياض الصالحين يبلغ مرانا. هاكم كوش شرح دور الشيخ شريف عبد النور أو كمل علماء ذوين إيه صومالي ذا وأنا كان عدكيسي إدكيسي معان. يعني أنت أقول قدمنا صحيح البخاري رياض الصالحين يبلغ مرانك ونودا تجنوغوس أي واحد سو قارسة 40 وشرح دوره 40 كهدي الله ودله وقول الشيخ عمر فاروق وكمل علماء ذوين أصفو مالذو أيضا بحي وأنا كل عدكيسي إدكيسي معان. يوميا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي مركو ذلك وحسناي يوميا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي gudubno 40 ka waan u soo daadegno dhinaca siirada iyo su'aalo iyo jawaabana waxa kugu diyaara Sheekh Dir waana kan codkiisii. cilmi kuma eka oo kaliya inaad ka dhageysatid tafsiirka Quraanka Kariimka ama markaasi siirada ama axaadiista ee waxa kale oo la socda duco. ducooyinkii oo lagu soo koobay ayaad adigu kala dooranaysaa masaajidada aad jeceshahay inaad ducada aad ka dhageysatid.
لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال. haddaba culimada waaweyn ee Soomaaliya ay leedahay ayaa kugu diyaaray in qalabkan cilmi ay markaasi kugu macneeyaan quraanka iyagoo ku fududaynaya meel kasta oo aad joogtid iyo goob kasta oo aad taagan tahay adigoo ka dhageysan doona qalabkan cilmi. haddii aad doonaysid inaad u safartid waddankaasi marka aad tagto aadan garanaynin qiblada meesha ay ka xigto ayaa waxa aad gelinaysaa waddanka aad joogtid iyo magaalada aad joogtid halkaas oo aad ka daawanaysid screenka qibladii markaasi salaada loo tukanayay. sidoo kale qalabkan cilmi waxa ay leedahay haddii aad doonaysid inaad shaqo aadid ama aad doonaysid inaad suxuur u kacdo ama aad doonaysid inaad salaada subax aad u kacdo waxa markaasi aad ku buuxsanaysaa alarm clock iyagoo markaasi kugu kicinaysa ama cod haddaad doonaysid ama markaasi haddaad doonaysid gambaleel ama haddaad doonaysid in quraan kugu kiciso caalamkaaga ayaa taabanaysaa. waxa kale oo cilmi ku dheer oo aad ka dhexeli doontaa haddii Allah wado loo ogolaado magacyada Allah subxaanahu wa ta'ala iyagoo qoraal ah iyagoo dhageysiya ayaad ka heli doontaa qalabkan cilmi bal qaran ka eegno. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. cilmi looguma talagelin oo kaliya inay dadka waaweyn ka faa'iideystaan balse waxa loogu talagalay carruurta marka ay yar yihiin inay ku bartaan barashada quraanka. waxa ku jira markaasi macallimiin akhrinaya quraanka ka bacdina ardaydii ay markaasi kaga daba dhawaaqayaan. haddaba ardaydii oo ka daba dhawaaqaya waxaan aan in maqalshino. أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. cilmi waxa ku jira 13 collection aadaan ah oo adigu markaasi aadaanka aad doonto codkiisa adkeysan kartid. haddii aadan 13 kaasi cod aadan markaasi aadan dhehaysan aadan ka yeelin waxa markaasi aad samayn kartaa inaad ku record garaysato adigu aadaanka aad jeceshahay ka bacdina aad ka dhageysatid cilmi. qalabkan cilmi waxa uu leeyahay haddii aad masaajid tagto oo siida aad ka dhageysanaysid aad ka heshay markaasi siiradaasi oo aad qalabkan ku duuban kartaa in ka badan 10 saacadood oo audio ah inaad ka dhageysan kartaa cilmi. taasi oo hore aysan u sameyn kareynin qalabkii hore ka jiray ee markaasi iyagu ay duubi karayeen ama daqiiqado ama dhowr daqiiqo laakiinse qalabkan cilmi aad markaasi helaysid inaad wato aad qalabkan ku duuban kartaa in ka badan 10 saacadood oo audio ah una dhageysatid ka bacdina aad ka tagtid ka bacdina muxaadarada dambe haddii aad jeclaato aad markaasi iyadana aad duuban karaysid. qalabkan haddaba waxaa la socda runtii qalabo badan oo ay ka mid yihiin manualkii marka boxka aad furto ayaa waxaad arki doontaa qalab badan oo ku dhex jira qalabadaasi badan ee ku dhex jira ee la socda cilmi waxa ay ka mid yihiin manualkii campus haddii aad safarto oo markaasi qalabkan oo kale aadan isticmaalaynin waxa markaasi jira campus yar oo la socda qalabka oo markaasi meel kasta oo aad joogtid qiblada kugu tusi doona. wana ognahay wadamada qaarkood waxay isticmaalaan koronto kala duwan laakiin se qalabkan cilmi isagu waxa uu wataa qalab loo yaqaano universal power oo markaasi wadan kasta aad tagtaaba aad ku isticmaali karaysid powerkiisa. waxa kale oo la socda batterigiisa iyo power charge isagoo waliba uu leeyahay letter clip oo aad ku qaadan kartid jeebkaaga ama markaasi ku xidhaya suunka dhinaciisa aad sida cellphone oo kale aad u qaadan kartid. على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي